Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Mudane iyo marweyn kusoo dhawaada Garaadka Academy, kusoo dhawaada barashada cryptocurrency-ga gaar ahaan qaybteeda bilaashka oo aad ka baranaysaan ama aad ka daawanaysaan mar walbo Garaadka Academy channel. Insha Allah tacaala casharkeena maanta waxaan rabaa inaan idinkula wadaago suuqa iyo xaaladiisa. Aan rabaa information kooban inaan idinka siiyo, sababtoo ah waxaan arkaynaa in badan oo ka mid ah dhalinyarta oo ku cusub suuqaani ama investor ahaan ugu jira ama investment ahaan ugu jira suuqaani inay xoogo marka welwel far badan ay ku hayso suuqaani marka soo daadashadiisa oo marka xoogo marka maalmo ay qaadatay weliba. Haddaba marka uu horeyn waxaan rabaa inaan ka hadlo marka ama aan idin sheego waxyaabaha muhiimka ah qof walba oo inaga mid ah inuu marka uu sameeyo. Ayaan rabaa inaan idinla wadaago iyo suuqa xaaladiisa ayaan isla fiirin doonaa insha Allah tacaala. Balse intaasi ka hor waxaan rabaa inaan idin ogeysiiyo in koorsada cryptocurrency ay diyaar tahay saddexdeeda level, haddii ay tahay beginner, haddii ay tahay intermediate iyo haddii ay tahay advanced level. Ay marka si toos ah qofkii raba marka inuu iibsado ama uu barto koorsadaasi ama koorsooyinkaasi diyaar ay yihiin. Hadda aad ka soo dalban karto WhatsApp linkiga aan ku soo dhigi doono qaybtani description-ka insha Allah tacaala. Haddii aad u baahan tahay koorsooyinkaasi insha Allah tacaala halkaasi nagu soo booqo insha Allah tacaala website-keena ama WhatsApp-keena aan iraade. Sidoo kale haddii wax yar oo marka hordhaan idinka siiyo koorsooyinkaasi, koorsada koowaad waxay ka kooban tahay ilaa iyo 42 cashar plus update joogto ah ayaa marka insha Allah tacaala aad heli doontaa. Sidoo kale koorsada labaad waxay ka kooban tahay 52 cashar plus update joogto ah ayaad heli doontaa. Koorsada saddexaad waxay ka kooban tahay 92 cashar ay ka kooban tahay, waxaadna heli doontaa update joogto ah insha Allah tacaala iyo taageero ama wixii caawinaad ah ayaad heli doontaa. Intaasi kadib marka waxaan rabaa sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay fadlan channelka inoo taageer, haddii horeyna la joogtayna waad ku mahadsan tahay la joogitaankaaga, soo doorashadaada, ka mid ahaanshahaaga Garaadka Family, Garaadka Academy. Marka waxaan rabaa inaan horey aan usii gudagalno muuqaalkeenan si marka waqtiga aan usoo koobno insha Allah tacaala. Suuqa haddii aan isla fiirino waxaan joognaa CoinGecko ayaan joognaa qaybtaasi ah. Sidoo kale halkaan haddii hoos wax yar aan usoo socono, halkaan waxaad arkaysaa marka coinskii ayaa halkaani kuugu jira dhammaantooda oo ugu horeeyo Bitcoin oo maraysa $9,457.54 ay maraysaa. Waxaa lagu leeyahay baraaska ama hoos u dhaca 1 hour-ka waa 1.5% waaye Bitcoin, 24 saacna waa 1.9% waaye. Todobadii maalmood la soo dhaafay Bitcoin 3.4 ayay marka hoos aaday ayaa lagu leeyahay. Marka coin market cap-keeda ayaad u jeedaa oo ama market cap-keeda aan iraaday ayaad u jeedaa qaybtaasi intaasi inay tahay. Marka saad u jeedinba Bitcoin waxay maraysaa marka xoogo marka aad ayaa loo soo daadiyay. Marka waad u jeediin hadda 95 ay noqotay inta aan duubayay marka intaan yar aan hadlayay. Marka suuqani waa xaaladiisa waaye. Sidoo kale waxaad u jeediin Ethereum oo coinka labaad ah asiguna waxa uu marayaa 2,600 ayuu marayaa hadda saad u jeediin 1.5 ayuu ku jira oo marka 1 hour-ka minus 24 hours-kana 1.5 waaye percentage ah khasaare ayuu ku jira. Sidoo kale 7 days-ka wuxuu ku jira 6.9% ayuu ku jira Ethereum. Sidoo kale haddii aan fiirino halkaani XRP ayaad u jeediin oo maraya 2.39 ayuu marayaa. Sidoo kale halkan percentage ahaan 1 hour-kiisa waa 2.1 ayuu marka hoos u daatay. Sidoo kale ama minus ayuu ku jira. Sidoo kale wuxuu marka 24 saac la soo dhaafay hoos aaday 2.3. 7 days-kiisana waa 5.9 waaye marka dhammaan coinska ayaa sidaas iska ah. Solana ayaad u jeediin 192 ay marayso, iyadoo ogsoonayn Solana inay gaartay $293 iyo meelahaas ay gaartay oo all time high ay samaysatay. Marka iyaduna minus ay ku jirta oo weliba 2.7% ah waaye 1 hour-keeda. Sidoo kale 24 hour 2.0% oo faa'iido ay samaysay. Sidoo kale 7 days-ka waxaa lagu leeyahay 11.4% ay samaysay oo marka kor u kac ay samaysay. Okay, haddii aan fiirino Doge ayaa u jeediin halkaani Doge 0.25 ayuu marayaa. inkastoo Doge xoogo marka intii rajadii laga filayay
dadka sanadkani ay saadaalinayaan xoogo marka laga yaabo inay marka xoogo hoos u dhac ku dhici kara sababtoo ah Elon Musk marka favorite-ka u ahaa coin-kani wuxuu marka arsiguna uu ka mid noqday marka dadka siyaasiyiinta ayuu ka mid noqday oo marka dadka weliba ugu dhow Donald Trump waaye sidoo kalena weliba waxaa la leeyahay waa qofka labaad oo Mareykanka marka amaradiisa ay ka soconayaan ayaa la leeyahay qofkaasi balse xogo marka maalmahani waa uu ka mashquulay siguna sidoo kale marka waan arki doonaa Doge iyo xaaladiisa waxyaaba ku soo kordha insha Allah taala sidoo kale Cardano ayaad u jeedin oo 0.7745 marayso 3.3% oo minus ay ku jirtaa wana warkeeda sidoo kale 7.24 saac waxay ku jirtaa Cardano waa 2.1 waaye 7 day-ga waa 0.2% faa'iido ay ku jirtaa haddii aan fiirino coinska aad ku soo daatay waxaa ka mid ah J-Link ayaa ka mid ah ama link ayaa ka mid ah oo aad u jeedin 18.5 ay maraysaa J-Link really anigu qofkii hadda J-Link maalgashi ku samaysan karo qofkaasi qof nasiib leh waa aan dhihi karaa sababtoo J-Link waxay maraysaa $18 ay maraysaa daraad waxaan ogeyn iyadoo maraysa $32 ay marayso 27 28 35 meelahaasi haddana waxay joogtaa $18 marka haddii hadda aad iibsato J-Link really waxaad samayn doontaa faa'iido fiican aad ka heli doontaa haddii lacag xoogo marka fiican aad geliso sababtoo ah aniga kula hadlaya J-Link lacagtani lacag ka badan ayaa iigu maalgashan tahay sidoo kale waxaan rabaa inaan dhalintaan u sheego inaysan marka ka welwelin mayniskani qof walba oo marka suuqani ku jira marka waa uu kula qabaa tusaale haddii qofkii ugu jiray $1 ugu jiray Solana ama aan iraade ama Zoo ugu jiray $1 waxaa laga yaabaa inuu haysto hadda marka lacag gaaraysa ilaa iyo $700 ilaa iyo $750 meelahaasi inuu haysto ayaa laga yaabaa intaasi kale minus ay yihiin balse waa lacag adigu ku maqan waaye oo marka ka welwelin waqti kaliya ay kaaga baahan tahay inaad siiso aad u samirto marka suuqani degdeg iyo marka lagama shaqeeyo oo marka lacagna lagama sameeyo midaasi marka waan idin kula talinaa insha Allah taala dhamaanteenaba okay haddii aan fiirino marka Cardano aan ka socono coin-ka xiga J-Link aan ka hadlaynay J-Link marka faa'iidaas ayuu sameyn doonaa weliba waxaa la saadaalinaa inuu lacag waali uu sameyn doono ama lacag fiicanba uu sameyn doono J-Link ilaa iyo $50 ilaa iyo marka meelahaasi ama ka badan xitaa uu gaari karo ilaa iyo $100 ay sheegayaan dadka qaar xitaa ay u saadaalinayaan J-Link inuu gaari karo balse anigu hadda mid uma sheegi doono sidoo kale waxaa ka mid ah Avalanche ayaa ka mid ah iyaduna saad u jeedin $24 ay maraysa Avalanche hore aan soo aragnay Avalanche oo marka maraysa $32 $40 ku dhawaad meelahaasi ay maraysay haddana waxay maraysaa $24 haddii aad haysato marka Avalanche fadlan ha iska iibinin oo lacagtaadii hayso ayaan kula talin lahaa haddii aadan haysanina oo suuqani hadda aad rabto inaad ku soo biirto Avalanche haddii aad lacag xoogo aad geliso ilaa iyo $500 ilaa iyo $1,000 ama ka badan aad geliso xaqiiqdii waxaad ka sameyn doontaa lacag aad iyo aad u fiican aad ka sameyn doontaa okay Zoo ayaa ka mid ah coinanka marka halkani inooga muuqda oo marka ka mid ah coinanka portfolio-ga ku jira oo aan aad marka rajo fiican uga leeyahay buur-rankigani sidoo kale Zoo waxaad u jeedin inuu marayo 3.15 ayuu marayaa lacagta DC-da aan ku sameeyay mardhow marka laga reebo lacagta ugu badan Zoo aan maalgashi aan ku samaystay waxay ahayd marka lacagtani way ka badan tahay oo ilaa iyo $4 agteeda waaye marka adigu nasiib aad leedahay weli haddii halkani aad ku soo gaartay Zoo oo halkani ay marayso weliba dhowr maalin haddii aad u sugto laga yaabo inuu hoos u soo daato balse waqti badan oo sidaas la iskugu haleyn karo suuqani ma yaalo oo ah oo inaad marka waa sii sugaya inta uu soo daadanayo haddii aad isleedahay waqtigaasi mar hore ayuu ahaa kaliya hadda qof walba waxa uu rajaynayo waxay tahay inuu suuqani marka uu dhaqaaq fiican u sameeyo oo suuqani marka sida laga filanayay uu sameeyo oo kor aado ay ku xiran tahay insha Allah taala qof walba midaasi ayuu rajaynaya marka haddii aad weli aad marka aad ku cusub tahay suuqani ama aad rabto inaad maalgashi aad ku samaysato Zoo waad ku samaysan kartaa siguna si lamida
okay haddii aan socno marka coinanka way fara badan yihiin coinanka aad maalgashiga aad ku samayn karto ama aad samaysan karto maalgashi aad ku samaysan karto aad ay u badan yihiin balse kuwani waa qeybaha ugu muhiimsan waaye oo marka aad maalgashi aad ku samayn karto sidoo kale waxaa kamid ah coinankaasi Algorand ayaa kamid ah sidoo kale waxaa kamid ah Jasmy ayaa kamid ah coinankaasi sidoo kale internet computer ICB midani lagu magacaabo coinkan asiguna coin la dhalisan karo maahan waa coin oo marka asiguna rajo fiican leh waaye meelihii ugu sare uu gaaray marka waa ilaa iyo lacag fiican ayuu gaaray coinkani haddii aan ku dhufano oo aan dhahno marka coinkani maximumkiisa haddii aan dhahno waxaad arkaysiin inay tahay meeshani oo uu gaaray marka 461.65 May 9keeda 2021 ayuu intaasi gaaray ayaa lagu leeyahay haddana wuxuu joogaa marka saad u jeedin $6 ayuu joogaa 2021 buurankii la soo dhaafay waaye buurankigani marka qiyaas haddii marka intaasi uu gaaro ama xitaa kala bar intaasi kamid uu gaaro ama $100 ka soo qaad meesha ugu yar uu gaaro waa lacag fiican waaye $6 haddii aad marka $100 ay ku gaarto ka waran adigoo xoogo lacaga geliyay marka adaba marka waan ka socon doonaa asiguna sidoo kale waan ka laaban doonaa coinankani marka haddii aad rabto coinan macquul ah render ayaa kamid ah oo marka coinanka ayaguna aadka marka qiimaha u leh render haddii aan fiirino oo aan dhahno maximumkeeda aan fiirino halkan haddii aan sugno waxyar marka render waxaan arki karnaa maximumka ay gaartay ayaan arki karnaa okay render halkan haddii aan fiirino $11 waaye ayaa lagu leeyahay waxayna gaartay Mars 14keeda 2024 render qeybahaasi ayay gaartay iyaduna balse hadda waxaad ujeedaa $4 oo keliya inay tahay oo 5% ay ku jirto oo marka hoos u dhaca ayaad ujeedaa marka render iyaduna coinska marka macquulka waaye oo marka bull rankigani lacag fiican laga samayn karo waaye marka okay marka suuqani qaabkaas ayuu u shaqeynayaa haddii aad ku cusub tahay suuqani fadlan marka koorsooyin fara badan ayaan ku diyaarinay Garaadkaba Academy ku jira oo aad ka baran karto oo waliba bilaasha marka booqo website-keena kadibna qaybta iyo playlistiga dooro kadibna kasii dooro cryptocurrency kadib halkaas aad ka heli doontaa dhammaan koorsooyinka aanu soo gelinay channelkani oo uga hadlaynay cryptocurrency-ga haddaba mar kale waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo haddii aad rabto barashada lacagaha cryptocurrency-ga koorsada la xiriirta bilow ilaa iyo dhammaad iyadoo ah levels kala duwan level bilow ah level dhexdhexaad iyo level oo advanced ah oo marka ku dhawaad 200 oo cashar ka kooban haddii la isku geeyo dhammaantooda saddexdaasi level waxaan ku leenahay nala soo xiriir oo marka qaybta iyo WhatsApp-ka nagala soo xiriir koorsadaasi waa diyaar qof walba raba inuu marka suuqani si in details step by step u barta oo raba marka insha Allah taala waa soo dhaweynayna okay intaasi kadib marka fadlan haddii aad nagu cusub tahay channelka inoo taageer subscribe-ta inoo saar haddii horeyna la joogtay adiguna commentiga like-ta iyo share-ta la wadaag asxaabtada walaaliina u baahan koorsadani si ay uga faa'iideystaan marka waxaan idin leeyahay dhammaantiina soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu